qisadan ayaa ka hoysisay wariyaashii duubaya isla markaana raad ku reebtay kana murugaysiisay. qisadani waxay ku saabsan tahay u baarisamaynta ama u baarifalidda waalidka, waxaana laga duubay dalka Soomaaliya, waxaana duubay wariye caan ah isla markaana u kurgala wadamada saboolka ah iyo dadka muslimiinta ah noloshooda iyo sidii ku nool yihiin. wariyahan wuxuu leeyahay inta aan barnaamij duubayay waxaan la kulmi jiray kuwa aad u xanuun badan, calool xumo ah, muruga ah. qisadan laakiin aad iyo aad ayay iga cajabisay oo iga yaabisay ina farxad gelisay. waxaanu soo booqanay Soomaaliya, waxaanu tagnay tuulooyin fara badan, waxaana noola sheegay guri ay ka jirto qiso cajiib ah, isla markaana waxaanu soo booqanay gurigaas. guriga waxaa ku noolaa hooyo, indhala iyo aabe iyo wiil ay dhaleen. runtii qisada markaan u kuurgalnay aad iyo aad ayay noo soo jiidatay, waana qiso cajiib ah. hooyadan waxaa la sheegaa inay dhashay 12 caruur ah. 12 caruur waxaa uga haray hal mid, halkaa mid oo runtii aad iyo aad ugu dadaala. guriga ay ku nool yihiin waa guri aad u liita, waxaana darbi u ah, ooda ayaa darbi u ah oo ay xayawaanka iskaga ilaaliyaan. hooyada waxba ma aragto, aabbahana waa shay, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay ku xiran yihiin. qur-aanka ayay akhristaan, salaatuleylka ayay tukadaan. ilaahay subxaanahu wa tacaalana muusan dayicin, wuxuu abaalmarin oga dhigay wiil ay dhaleen oo oga soo haray 11 caruur ahaa ee ka gooriyootay. halkaa wiil ayaa wuxuu ugu filnaaday inuu ka baahi tiro wax kastay u baahan yihiin. hooyadan iyo aabbahan ayaa wiilkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala u sakhiray. hooyadiis wuu dhaqaaleeyaa, muruqa ayuu ka saaraa, wuu la dadaalaa, cuntada ayuu u kariyaa, waqtigiisa hooyadiis ayuu siiyaa. qisadan ayaa waxay caan ka noqotay tuulada uu degan yahay, maadaama uu yahay nin isla markaana uu cuntada u kariya hooyadiis, isla markaana uu gacantiisa ku siiyo. waxyaalaha waxay ahayd aadka noo soo jiitay oo la yaabka lahaa. isla markaana uu hooyadiis cuntada siinayo, wuxuu gacantiisa uga celinayaa xayawaanka iyo waxyaalaha ku soo aroora. sidoo kale waxaa la yaab lahaa inuu cuntada hooyadiis u suubiyo ay tahay cunto jilicsan, isla markaana uu cuntadaas asaga xataa cuno, inkastuusan ka helin cuntada, laakiin maadaama hooyo ay rabto, asagana uu la cunaa si uu hooyo ugu qanciyo ugana farxad geliyo. arrintan ayaa runtii ahayd arrin la yaab leh, waxaana muuqaalkan aad uga jeedaan sida wanaagsan ee uu la dhaqmay waalidkiisa. xataa gacantiisa wuxuu la dhaqayaa gacanta hooyadiis. hooyadiis wuu qaadaa markay u baahan tahay inay tagto meel harle, meel qorax ah, isla markaa wuxuu isku dayaa inuu ka ducaysto oo muruqa ka saaro. allahu akbar. waa qiso aad iyo aad dareen igu reebtay, isla markaana mucjiso nagu noqotay aniga iyo dadkii duubayay. runtii waa arrin cajiib ah. su'aal la weydiiyey walaalkan wuxuu ku jawaabay sida لديه أصدقاء وتفضل سيد صاحب مليء واحد صاحبه علي وهي بالله ولا جوا بيوم ساس وقت الكروي ما هو كل حاجه ليس لي صاحب غير والدي وقت يعني وانا ليس لي وقت لغيري. sidoo kale waalidkiis waxay jecel yihiin inay qur-aanka ka maqlaan. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ugu dambayntii walaalayaal, walaalkii barnaamijkan ila duubayay Bashiir ee ooynayay hooyadiis way dhimatay ee u duceeya ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naxariisto. hooyadiis way dhimatay, shalay way nooleed, maanta ma noola. adduunka ayaa saas iska ah. haddaba walaalayaal, waxaa la joogaa xilligii aan ka ducaysan lahayn waalidkeen. qof walbana uu waalidkiis ka ducaysan lahaa, ama ha noolaadaan ama ha dhintaan. waalidka walaalayaal, ama adiga aad ka dhimanaysaa ama ayaga ayaa kaa dhimanaya. haddaba waxaa lagaga baahan yahay in aad fadhiga ka kacdid oo waalidka aad ka ducaysatid. waalidkoo laga ducaysto barako badan ayay leedahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala nuuna amray. ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiinteena ha u dambi dhaafo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo naxariisto. ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatada ha ka qaado ummadda muslimiinta meel kastay joogaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.